waxaan dadaal ugu jiraa inaan tuso dumarka inay heer kasta oo nololeed ka qayb qaadan karaan. Waxaa sidaas tiri gudoomiye ku-xigeenka gobolka Doolo ahna ku-siisimaha gudoomiyaha gobolka Marwo Khadiija Aadan Cabdi. Marwo Khadiija Aadan Cabdi waa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Doolo ahna ku-siisimaha gobolka, waxaana kula kulannay iyadoo howlo kormeer ku wehelinaysa wafdiga socda xafiiska biyaha ee dowladda deegaanka Soomaalida degmada Leheliyo ee gobolkaasi. Maraan wax ka weydiinay bal inay nooga jawaabto su'aasha ah waa tuma Khadiija Aadan Cabdi cidda aan garanayn maxay ugu sharixi kartaa. Waxayna sheegtay inay tahay hooyo u dhalatay deegaanka Soomaalida. waxaan dadaal ugu jirnaa inaan tuso dumarka inay heer kasta oo nololeed ka qayb qaadan karaan, inay bulshada u adeegi karaan, inay shaqada ragga ay qabtaan qaban karaan oo dadaal badan samayn karaan. waxaana hadalladeedii ka mid ahaa aniga magacayga waxaa la yidhahdaa Khadiija Aadan Cabdi, waxaan ahay gabadh u dhalatay deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka Doolo. hooyaan ahay sida iga ka muuqata dee wejigayga. dadaal waxaan ugu jiraa kow inaan tuso dumarku inay heer kasta oo nololeed ay ka qayb qaadan karaan. awal hooyay ahaayeen inay bulshada u adeegi karaan, inay shaqada raggu qabtaan ay qaban karaan, dadaal badan inay samayn karaan. gabdho badan oo yididiilo badan oo noocaas qaba iyaan ka mid ahay oo deegaanka Soomaalida u dhashay. markaan waxaan leeyahay in aan ahaado tusaalooyinka gabdhaha ah ee deegaanka Soomaalida u dhashay ee horumarka higsanaya ee dhinaca siyaasadda raba in istiraatiijiyad tan ragga la mid oo kale ay qaataan ayaan ka mid ahay. dhinaca kale Marwo Khadiija Aadan Cabdi gudoomiye ku-xigeenka gobolka Doolo ahna ku-siisimaha gobolka maray ka jawaabaysa su'aasha ah sida ay shaqada iyo howlaha qoyskeeda ay isku waafajiso ayaa waxay tidhi in nidaamka aan haweenka maamulka ah fikirka ciriiriyoon ee laga qabo ka mid tahay in haweenku aysan ka shaqayn karin shaqada dowladda iyo tan qoyska, balse nidaamkaasi ay tahay fikir ciriiriyoon oo la rabo inaan jabino. waxa ay sheegtay inay ku maaraysay inay dejisatay qorshe iyada u gaar ah oo ay sheegtay waxa intaasi ay ku dartay inaysan inta isbedelka kaliya aysan maamul noqon, balse khibrado badan oo ay ka heshay xilliyadii hore ee ay maamulka ka soo ahayd xilligii dib u curashada. ayay sheegtay inay meelo badan oo degmooyinka deegaanka ah xilal kala duwan ay ka soo qabatay ilaa heer gudoomiye degmo. waxaana hadalladeedii ka mid ahaa su'aal wanaagsan oo waxyaabaha fikirka ciriiriga laga qabay ka mid tahay dumarku inayna heerkoodana ayna ka shaqayn karin hadday shaqada dawladda qabtaan. laakiin dadku haba ogaadaan aniga hooyo ah oo caruur leh, heerkaygana waan ka shaqayn. si aan uga shaqeeyo inaan maareeyaa loo baahan yahay. qaab aan u maareeyo intaan samaystay ayaan shaqada dawladdana qabtaa, caruurtayda iyo reerkaygana qaab aan u maareeyo ayaan samaystay. waxaan kuu sheegayaa hadda keliya maaha safarkan, dib curashadii waan galay degmooyin kala duwan oo booq ay ka mid tahay, fiiq ay ka mid tahay, fiilto ay ka mid tahay. markii dib curashada laga soo laabtay galaadii iminka wareer anaa reerkayga iyo ciyaalkayga la joogin baan shaqadaas qabtaa. caruurtayda iyo reerkoygana waqtiga aan u helo iyaan ka faa'iidaystaa. weliba waxaan igsanayaa caruurtaydu inay noqdaan dad sooyaalka taariikheed inta ku abtirsada manashaa ka dhigta aniga. waayo aniga gurigayga keliya haddaan ku simanahay waxaan ahay qof dee hawl gooniya haya, laakiin iminka waxaan hayaa hawl bulshada deegaanka Soomaalida wax u taraysa oo naxdin aniga igu noqonaysa oo ka jawaab iga raadinaysa oo jawaab u raadinayo marmarka qaarkood waxyaabahan arko. haddana dee waxaas oo urku taalo ah markaan arko in ay noqonayso inaan ka fakaro istiraatiijiyad dheer oo ka dheer qoyskayga inaan sameeyay noqonaysa. ugu dambeyntiina Marwo Khadiija Aadan Cabdi waxay fariin u dirtay dhammaanba haweenweynaha ku dhaqan deegaanka Soomaalida inay kaalinta raggu ay qaban karaan oo kale ay qabtaan, isla markaasina ay u jihaystaan sida ay noloshooda wax uga bedeli lahaayeen. horta fariinta aan raba halkan inaan ka gudbiyo anigoo ku wajahaya dhinaca dumarnimada laba arrimood baan oranayaa. horta dumarku waxay istaagaan baan leeyahay ayagoo oo reerahoogana dhaqanaya, bulshadana inay u adeegaan, siyaasadda iyo dhaqaalaha deegaankana inay wax la qaybsadaan. ragga ha u istaag ma aha xumaan maaha in aad wax barato, in aad siyaasi noqoto, inaad dhaqaalo samayso wax xun ma aha. waxa xun inaad daciif noqoto oo aad maareyn kari weydo noloshaada. dumarka iyaga intaasaan leeyahay.